عبانت اللي waxaan duubahay waxaan joognaa qooriga magaalada Caluula ee gobolka Boolimoog waxaad daawanaysaa nin waa bilicsamida qooriga waxaan arkaysaa nin ee greenka ay waxa weeye waa dhirta loo yaqaan shawrada iyo qoorigii siday isku yihiin oo isugu jarjaran yihiin dhinac kasto aad ka eegto dhirta tani way ka haysaa hadda waxaan soo soconnay qiyaas ah adigu ilaa iyo 220 kiiloomitir 220 kiiloomitirba waxa weeye waxay ahaayeen wada cagaarkaas ayay ahaayeen waxaanu ka koobanahay team u soo dalxiis tagay deegaanka u soo dalxiis tagay oo isugu jira dhalinyaro aqoon-yahana abwaano saraakiil ka tirsan maamulka Raasi Casayr State waxa hadda hortayda fadhiya waxa weeye waa ururshe oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka CYU oo hawlo shaqo u jooga deegaamada Raasi Casayr waxa dhinaca kan joogta abwaanada la yiraahdo runto xajoog oo aad buraanburadeeda in badan aad aragteen ama aad dhageysateen oo iyaguna ka qayb qaadanaya dalxiiska iyo bilicda wadanka ka qayb qaadanaya waxa dhinacan taagan waa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Raasi Casayr waxa la yiraahdaa Caawil Maxamed Talyaani waxa xagga jooga oo noo wada saxiimada oo kabtanka saxiimada wadaay waa Cabdi Cali Xiji dalka quruxdiisa iyo bilicdiisa ayaanu rabnaa inaanu u soo bandhigno inta aan jaanis u helin inay yimaadaan ama ay daawadaan dalkooda waad u jeedaan in wanaaga ka muuqda iyo bilicda iyo quruxda iyo sida uu u qurux badan yahay deegaankiinu waad u jeedaan dhinac kasto aad ka fiiriso inuu cagaarku uu ishaysto meel kastana waa wado intii la doono ayaa lagu safri karaa ama lagu socon karaa waa dhul ilaahay uu ku minaystay qurux iyo sharaf uu ku minaystay waa deegaanka caynkaasihi waa meelaha loogu dalxiiska badan yahay ama dalxiiska loo tago guud ahaan maamulka Raasi Casayr deegaamadiisu waxay ka siman yihiin dhinaca dalxiiska waxay leeyihiin meelo badan oo lagu dalxiiso hadday noqon lahayd gobolka Binna ee caasimadiisu tahay magaalada Baargaal iyo hadday noqon lahayd gobolka Boolimoog oo caasimadiisu ay tahay magaalada Caluula ujeedada laga leeyahay filimkani waxa weeye waa baro dalkaaga qof kastii waa waajib inuu dalkiisa uu barto noloshiisana uu mar yimaado in aan tusno dadka aan jaaniska u helin inay deegaankooda arkaan ama ay bartaan ayaanu filimkan uga dan leenahay inay ku dalxiisaan oo ay yimaadaan waxa mar walba yimaado oo safarada dheer u soo gala dadyo kaleeto oo aflaanka duuba oo ku dalxiisa oo siyaabo badan uga faa'iideysta marka bal eega siday tahay qurux ku tahay bal daawada siday isugu yaalin biyaha iyo dhirtu ay isu galeen
waa kaasaa daawadayaal waa u jeedaaniin haddaan soo dhaweyno waad aragtaan hadda waxaan nimid meel biri ayaa nimid waxaanu ku dhex jiraa dhirtii iyo kaymihii ayaanu ku dhex jiraa waatanaa waa ka digaynaa khooriga caluula waa ka digaynaa hadda sixiimadda ترتيب ودك ترتيب waraysiyo kooban ayaanu ka qaadi doonaa awalna dadka ku sheegtaa deegaanada musin hadal bay rabaan inay wax ogaadaan hadda waxaan u soo degnay biriga ayaan u soo degnay waxaan ku dhex jiraa qiimaha ayaan ku dhex jiraa meel walba waxaa kaa qabanaya biyaha degan ee dhex sabaynaya intaan cagaarkaa tani waa saxiimadii aan la soconay weeye waa gaadiidkii shiday عجز ديال عبدي يقول أنا ما راح أصبحان ما أيوه هذا عبد علي عمر عبد علي عمر كور أنا خوري جاي حالتي سشورة دان كانوا عادوا يقولوا لي ما أنا في عيني ما أنا أرتاح سيدا قرص وقاب يسوي هاي أنفعلين سنو عادوا بنطة معاك من منفعات كشيء درتن لي شورة درتن شورة حويا منفعات كذا بدن وحويا والله نور يعمل وعادوا ما أرتاح متفعصة dadkuna waa shitaan waa guryaha ayaa lagu dhistaa aduu qaybo badan baa loo isticmaalaa waa gartay ka waran xagga dalxiiska waxa ka soo gaadhay ma dalxiiska xagga dalxiiska aad baa loo yimaadaa waa meel qurux badan biyaha iyo xagga cagaarka indhaha soo jiidanaya aad baa macnaha loo xiiseeyaa kalluun laga soo saaraa xagga kalluunka xagga badda ahaanta kalluunka laftiisu waxa weeyaan waa kama maro oo waa laga helaa isagoo qaybo fara badan waa gartay kalluumada maxaa ka mid ah كلهم بدن بالها فرا بدن ونوعية بدن له بدن كود ولا استعماله واقر منافعات كذا أنت سنقنا يا مياه منافعات كذا أنت سيك بدن بلي ما شاء الله كسنة عبد علي عمر بوها وهو ورثنا وعنا أخوتي سحمة النودي waxaan hadda soo
شورى صوب حسوا وحنا waxaan rabnaa inaan waraysi kooban aanu ka qaadno xubin ka mid ah ururka la yiraahdo CYU oo loo soo gaabiyay Casiyad Youth Union way wada garanayaan in badan dadku waa ururshe oo hawl shaqo u jooga deegaanka Raasi Casayr gaar ahaan gobolka Boolimoog caasimadiisa Caluula isaga iyo tiimkiisa inkastoo tiimka aysan la socon laakiin hadda waxa nala joogo urursha ku soo dhawow waraysigan aan kula yeelanayno waa ku dhow waa mahadsantahay urursha waxaad nooga warantaa guud ahaan jawiga ururkiina la yiraahdo Casayr Youth Union iyo qaabka uu shaqeeyo waxyaabaha uu qabto wuxuu ka kooban yahay sida uu hawlgalo xaguu ka shaqeeya ma dalku ka shaqeeya ma dibaddu ka shaqeeya adigoo warbixin kooban naga siinaya bal noo faahfaahi insha Allah waa mahadsantahay ismaan ku mahadcelinaya marka hore bacdamaad ururka CYU waa urur dhalinyaro oo la aasaasay sanadu markay ahayd 2011 bishii koobaad marka ururku inkastoo muddo yar uu jiray waxyaabo badan buu qabtay waa urur wacyigelin urur deegaan weeye ma aha NGO sida lagu yaqaan deegaanada ururada kale wuxuu qabtaa wacyigelinta weeye awoodiisu marka hadda inta badneed ururku wuxuu u xiibsiimay insha Allah inuu maamulka la shaqeeyo maadaama uu magaciisa sida ka muuqata Casayr Youth Union uu ahaa maadaama uu dhismay deegaan ay urur maxaan ku dhahaa maamul ay ku qanacsanahay oo la yiraahdo Raas Casayr State waxaanu jeclaysanay dhammaan dhalinyarada ururka iyo xubnihiisa kala gedisnaa inay la shaqeeyaan maamulkii si ay wax la qabtaan ururka hadda xagee buu ku yaala xafiiskiisu deegaankan hadda aad ka hawlgashaan ma ku leediin xafiis aad ku shaqeysaan xafiiskiisu adigu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada Boosaaso oo degan yahay saldhigiisa koobaad marka adigu maamulkan markii la aasaasay xoogaa carqalado xagga maamulka Puntland baanu ka shaqeynay ama nooga yimid marka waxaanu jeclaysanay inaanu guud ahaan ka soo wareejino ururka aan u soo wareejino deegaankan xafiiskiisa weyn marka xafiis hadda ku meel gaar halkan insha Allah waan damacsanay inaan ka furno maatinkayga saas iyo badnaa xubnaha ururkan ku jiray madaxdooda sare xagee bay joogaan ما شاء الله أوركني وأوروين إسات كور قبته يوسف وحوك الدسين هاي دمام بعالم كوفيها لا أورك وبحسين هاي لكن أودي سادي بدو كله يوروب كله إنجليزكا اللي يراه فهد يا جوجا أورك حبين كا أو أساسيات أورك كمدا السودان أو كله درس مكيران اللي يراه جوجا محن كلها اللي يراه أسنا جوجا مقالة محن كلها Uganda nimba u jooga la yiraahdo maxaan ku dhahaa namnam ururka maxaan ku dhahaa xubnihiisu waa fara badan yihiin waxaan jecelahay insha Allah inaan inta kasii ballaarino adigu gudaha iyo inta badan awoodda ururku yahay dibaddana uu ka shaqeeyaa ururkuna urur baaxad leh oo asalkiisu yahay wacyigelin bulshada sida loo wacyigelin lahaa maadaama bulshadu wacyigelinta ay ka dhimatay waxyaabo hadda aad sheegi karto ururku ama deegaamada uu ka qabtay ma jiraan ما شاء الله ها أوركو وحوين بقبتي وحكم إذا ها أوركو إنه قعوين كجيستي إن محاكو ده زوجريتان كي مامول كريستان كيسي يقبل قابدي سي أوركو قعوين بكجيستي وأوركو قعوين كجيستي أور مرينا أيكين وحكم ذهين حاجة عافمات كلمة بشدة دان له كالعافمات كي وحبرشة أوركو حياة بدن بكجيستي ودجان كو أدو هو سيو إنك استودع أوركو تور وين أو وقعن قبل كروان ولهين عندنا وحكي عويي بالشدي وعيقلين أدو فر بدن أوركو بالشدة سي iyo maxaan ku dhahaa sida u tusi lahaa bulshadu sida iyagu wax u qabsan lahaayeen su'aasha ugu dambayso aan ku weydiinayo maadaama aad sheegtay ururku inuu ku baahsan yahay dalka iyo dibadda uu ku baahsan yahay maxaa talo ah ama ra'yi ama fikir oo aad u soo jeedinaysaa dadka u dhashay deegaamadan ama jaaliyadaha ku kala firqsan daafaha dunida ee ururkan uu ku magacaaban yahay maxaa talo ah oo siinaysaa والله أرتا نول بإشي سامعلن وأهبل ليري أوركني وأور دلنيرو وديجانك كأساسا نول بأو وجالية دان كأس عصير وحن به لها أوركني عيد مكان يعل وقدن منا ما وجرا وأورادين كيلن سوية وحقبت كيسونا تعل وقبتي إن بشدي سوى حكا دونه أو أنا كجرات سن وحكله وحا موقال كوقبتي maxaan ku dhahaa ay noqoto wax lagu taageero ama lagu naco ama ururkii lagu hirgeliyo marka dhammaan jaaliyada Raas Casayr meel kasta oo joogto waxaan ka codsanayaa in gacan la siiyo kow maamulka ururkaba intaan la gaarin maamulka Raas Casayr oo inoo dhisan in la taageero meel walba la joogo ururkana insha Allah maamulkaas markuu taageero hol ururkana taageero waa helaya ma isleedahay maadaama maanta aan joogno goobaha dalxiiska
aan soo aragnay quruxda iyo wanaagga ka muuqda haddana aan taagannahay biyaha iyo cagaarku meeshay iska galaaniin ma isleedahay dadka ku abtirsada deegaankan inay soo booqdaan oo arkaan quruxda ka muuqata deegaamadooda maxaad kula talinaysaa haa wallaahi runtii wax lala yaabaanu aragnay annagoo deegaanka in muddo ku sugnayn markii ugu horreysay bay noqotay aan meelahan soo booqano inkastoo aad aan isu dhexgeli jirin waxaanu la yaabno annagii bay noqotay dadka kale oo dibadda ku noolna waxaan u sheegayaa inay ayaguna bal nala soo arkaan dhulkooda oo ay soo daawadaan dalxiis hadday meel aadayaan kulley dabcan xilliyada xagaaga oo kale waa la xagaa baxaa meelaha la aadaa marka dhul kale intay aadi lahayn waxaan dhihi lahaa deegaankiina soo booqda oo soo aada oo bilicdiisa iyo maxaan ku dhahaa dadka idiin baahan soo aada aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay master ururshe kaasi wuxuu ahaa xubnaha sarsare ee ururka CYU maxamed yaasiin ururshe aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ururshe sidoo kaleeto waxaa halka taagan cawil maxamuud talyaani oo ah sarkaal ka tirsan maamulka Raasi Casayr State cawil ku soo dhawow wareysigan kooban oo aanu kula yeelan doono cawil waxaad nooga sheekaysaa guud ahaan deegaanka bal xaaladiisa amni xaaladiisa nabadgelyo xaaladiisa shaqo sida uu yahay dadku sida la isugu tiirsan yahay bal guud ahaan waxaa naga siisaa warbixin kooban bismillaahi raxmaani raxiim deegaanka warbixin kaasi ballaaran waxa weeye deegaanka waa dhex taagantay intaa joogtana waa aragtay nabadgelyada ka jirta muddo badan nabadgelyo oo laga shaqeynaya maamul goboleedka Raasi Casayr State waxyaalo badan oo xagga ah nabadgelyadu ka qabtay sida burcabadeeda tuuga maaragtay dhul badan ka yimi oo tuuga ah waxyaalo badan baan deegaanka ka qabanay waana ku dadaalay insha Allah haddana magaalada waxa wadanka nabad fiican ayaa ka jirta markii la dhisay maamulka Raasi Casayr State dalka iyo dibaddaba wuxuu ka helay taageero ballaaran oo hiil iyo hoob ah dadka gudaha guud ahaan dhammaantood waxaa la oran karaa way taageersan yihiin maamulka Raasi Casayr ma isleedahay taageerada dalka iyo dibadda loo muujiyay waa istaagi karaa maamulka Raasi Casayr ama waxa uu gaari karaa himilooyinkiisa boqolkiiba 90 waan maleynayaa inuu istaago waana istaagsan yahay deer adigu waxaad tahay sarkaal ka tirsan maamulka waxaad u qaabilsan tahay dhinaciisa arrimaha amniga haddii aan soo qaadno magaalada Caluulo oo kaleeto waa goob shaqo waxaa ku sugan dad aad iyo aad xoogsata ah waxaa jooga doonyo badan waxaa jooga saxiimado badan oo intuba ay yihiin gaadiidka lagaga shaqeeyo badda see u sugtaan dadkaas amnigooda iyo hawlahooda shaqo magaalada waa aragtay laba xero ku yaala labada xero ciidan baa degan ciidamadaasna amniga sugaanin wax dhibaato ah oo khashkhashaad kama dhacaanin gaadiidka arkaysta kulli motorada iyo shidaalka iyagu yaala banaanka looga daro loogana seexdaa waxa weeye dadka arkayso magaalada waxa weeye kulli xeebaha la seexay nabadgelyadu aad bay u sugan tahay maxaad isleedahay maadaama dadku dibaddana la joogo dalkana la joogo jaaliyadaha deegaamadan ay ku badan yihiin dibadda ay ku badan yihiin ayna suuragal tahay inay daawadaan filimkan aan maanta ka qaadayno magaalada Caluula goobteeda dalxiiska Khooriga Caluula maxaad kula talin lahayd jaaliyadahaas ama aad u soo jeedin lahayd oo tala ah walaalahay deegaanka u dhashay iyo kuwa deegaanka u dhalan dhulka lagu dhashay kullu waxa la ku soo dhawaadeen dhulkan bilicda wanaagsan badda iyo biyaha iyo waliba khayraad kale oo fara badan leh dalxiis aad badan leh inay ku soo dhawaadaan kuna soo dalxiis tagaan wadankooda nabadgelyada ah aadna loo sugay nabadgelyada aad iyo aad ayaad mahadsan tahay cawil maxamuud talyaani waxaa sidoo kaleeto ka mid ah tiimka dalxiisayaasha ah ee ku sugan goobaha dalxiiska ee maamulka Raasi Casayr State gaar ahaan magaaladiisa Caluula ruun maxamuud yuusuf oo ah qof abwaanada ama afmaalada oo tirisa inta badan buraanburada lagu dhiirigeliyo maamulka Raasi Casayr iyo bulshada deegaamadan ku soo dhawow ruun maxamuud yuusuf wareysigan kooban ee aan kula yeelanayno aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana dhawah bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa taariikhdaada faneed maadaama aad tahay qof abwaanada oo inta badan dadku ay kugu yaqaaniin hal abuurka buraanburada gabayada geeraarada lana fili karo inay dad badan ay daawadeen bal taariikhdaada faneed waxaad naga siisaa warbixin kooban
بسم الله الرحمن الرحيم goormaad balowday maxaa kugu dhaliyey maxaa mataqaanaa caqabada ah oo kaaga hor yimid xilligii aad balaabaysay والله وحويان horta abwaanimadu ama waxa la yiraahdo hal abuurku waa wax iska hibo ah oo qofku macnaha ama ha yaraado ama ha weynaadee uu iska dareemi karo oo la jaan qaada hadalladiisa anigu hadda ma xasuusan karo xilli aan bilaabay laakiin anoo yar waan baraambugi jiray waan heesi jiray waan gabi jiray waxa igu horeeyay anigoo dhigta fasalka koowaad markii la geeyay maalin maalmaha ka mid ah waan iskuulka bilaabay maalin maalmaha ka mid ah baa waxay yiraahdeen macallimiintu waxaad qaadaa xiisadii waxay ahaayeen suugaanta marka waxa la hees noo tiri heeskii adigu heeso aan maqli jiray waxaasaan meeshii ka tiriyeen oo yar laakiin markaan guriga tegay maskaxdayda waxa ku soo dhacday inaan macallimiintaba maadaama ay waxna barayaan aan markaas aan bartay higaadii xisaabtii wixii kala bixeen Soomaaligii higaadiisii wixii aan bartay wayaan macallimiinta la keenay jireen waxaan ka bilaabay iskuulka degmada Caluula macallimiinta markaas dhigaysa waxay ahaayeen macallimiin laga keeno Hargeysa iyo Muqdisho iyo gobollo kala fog anoo guriga joogo ayaan waxaan qoray buraanbur aan u tirinayo macallimiinta ugu mahadnaqayo buraanburkaasna wuxuu ahaa macallimiintii ay mahad baan idin wadaa waxaad noo soo marshayseen muddooyin badan waxaad naga muujinaysaan mabda'a runka marag waxay noo ah goortaad wax muujisaan waan yaraa halkaas baan xasuustaa markii waxyaabo aan buraanburkii igu horeeyay intii ka dambeysay maraan naftayda u tiriyo maraan waxaan ka shaqooyinkan qabanayo u tiriyo maraan waxbarashadayda kaga hadlo maraan soo korayo soo weynaaday aroosyada iyo aan ka qayb galo oo aan aroosyada ka buraanburo heer maalinba nooc bay ahayd baa laga soo gudbay xilliyadan dambeeto oo macnaha dawlad la'aantu dhacday dawladda dhexe oo qaran la waayay deegaanada aan ku sugannahayna maamul la'aantu ka dhacday oo ay aad u dibdhaceen oo dhinac kasta arrimihii bulshadu ay meesha uga baxeen oo dadkii jidad la'aan iyo biyo la'aan waxbarasho la'aan caafimaad la'aan horumar la'aan ay ku dhacday waxaan la qiirooday oo aan la dhibaatooday dadkaygii dhibaatada haysata siiba haweenka iyo carruurta oo ah dadka ugu nugul dhibaatada dadka ku dhacda runtii dadka hal abuurada ay intooda badan qolaba waxa weeye sibay u abaartaa muujada fanku ma isleedahay hidaraac ayuu yahay fankaagu oo waxaad ka haysaa meelo ama qaraabo ama ehelkaaga oo mataqaanaa fanka ku dhex jira ama mataqaanaa hal abuurka ka dhex muuqda maasha Allah haa waxaan xasuustaa anigu ku garaadsaday ayeeyaday hooyaday dhashay Muumine Maxamed baa la oran jiray iyadoo gabayda waa anaga noo gabayda mid noogu gabayda oo geeraarta oo heesta oo buraanburta waxaan ku soo garaadsaday hooyaday Maka Yuusuf Cali oo aan is oran karo anigu waxba ma aqaan laakiin waa abwaan weyn oo aan heesta oo macnaha aysan u kala duwanayn maasadu hees gabay geeraar buraanbur intaba tirisa kadibna anaga baaba isku aragnay oo dad badan oo hadda walaalahay oo kaleeto oo wax way kabiyo rag iyo dumar leh waan ku arkay ana naftayda waan ku arkay marka waxaan soo oran karaa waa hidaraac abtiyaashay waa gabi jireen hooyaday waa gabi jirtay ayooyinkay waa gabi jireen waliba dhanka hooyo baan isleeyahay wuu kaaga yimi waqtiga oo kooban aawadiis ka waran guud ahaan deegaamadan iyo wixii talo oo aad u soo jeedinayso dadka filimkan daawan doona ka soo jeeda deegaamadan adigoo soo koobay ما شاء الله dadka deegaamadan degan oo qurba joogta ah shanta qaaradood qaaraday joogaan qaaraday doonaan baa ku noolaadeen horta marka hore waxaan u soo gudbinayaa salaan kale iyo laaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay dadku dalka lama wada yaqaan lamana iman lamana arag waxaa loo malaynayaa meel yar oo iska tuulooyina dalku waxa weeyaan aan leenahay oo la hadda la baxay raasi casayr maamulka ka dhashay waa deegaan aad u ballaaran waa deegaan laba badood leh waa deegaan nimco dabiici leh oo xiji meeydi iyo beeyo iyo falax iyo dhir macnaha aad
adduunka qiimo uga leh ay ku taallo waa deegaan beero timreed leh waa deegaan beero khudaareed leh waa deegaan leh waxa weeyaan khayraad dabiiciya hadda wada aragtaayo qooriga calulaan taagannahay oon soo koobi karin dhirtaa ku beeran shawraa la yiraahdaa adduunka meel weeyaan ay ku beeran tahay waa yar tahay waxa weeyaan dadkii horeeto ayaa ka fekeray bilicda waddanka oo iyo in xooluhu xilli abaareedada aysan abaartu ku dhicin oo xooluhu ay cunaan dalkuna bilic ku yeesho waad aragtaan dalkeenu sidoo u qurux badan yahay waad aragtaan sidoo webiyadu dhinacyada uga raacayaan waad aragtaan sidoo beeraha tigu yihiin waad aragtaan sidoo waxa weeyaan uu dhul bad leh oo istiraatiiji u yahay dadka qurba joogta ah ee deegaanadan Raasi Casayr State u dhashay gobolka Binna iyo Boolimo kay doonaan wax ka soo jeedaan waxaan leeyahay deegaankiina horta marka hore imaada oo arka oo hadduu idin qanciyo maal gashada waxana ka qabsada dadkana wuxuu qabta ana dadka hadda jooga oo deegaanadan ku nool in badan baad kaga horeysaan xaq aqooneed xaq ilbaxnimo dhinac kasta fikrad ha noqoto waad ka horeysaan baan isleeyahay marka waxaan idin ka codsanayaa inaad deegaanka barwaaqada cagaarka badan bilicda weyn aad timaadaan idinkuna wax ka qabsataan oo goobada xiis ka samaysataan oo ganacsi ka samaysataan oo waxa weeyaan wax ka qabsataan dadkana aad wax uga qabataan oo horumarkiisa aad ka fikirtaan sababtoo ah waxa la kulli shay yarjic ila asl nin kasta wuxuu ku dameynayaa meesha uu ka soo jeeday maxaad ku soo gunaanadaysaa waraysigaaga waxaan jeclaan lahayn bal tixahaaga aad tiriso oo aad ku gubaabiso dalkan iyo dadkan aad ku gubaabiso mid ka mid ah inaad noo doorto oo aan ku soo afjarno waraysigan kooban iyo goobahan dalxiiska iyo xaaladahooda maadaama aan la hadlayo baxdeeb aniga waxa weeyaan baraamburada aan tiriyo oo gubaabo iyo wacyigelin iyo dhiirigelin iyo isugu jirta aad bay u badan yihiin way duuban yihiin oo meel aan u dirin ma jirto Afrika iyo Asia iyo Yurub iyo America meel kasta inta dadku joogo dad aysan gaarin way jirtaa wax laga yaabaa inay jiraan laakiin hadda maadaama aan qurbo joogta aan anaha la hadlayo waxaan dhihi lahaa maalin joog weeyo dal shisheeye male miciin war maalin joog weeyo dal shisheeye male miciin ee dalkiina ka muuqdo wadankiina maalgashada qoto macdantiina dahabkiina meel marsada oo malayga ka ganacsadiyo maydigiyo xabkaha malayga ka ganacsadiyo maydigiyo xabkaha oo murwooyin iyo mudane hadalkayga meel ku xira taas waxaan kaga baxayaa qurbo joogta waxaad gacanta ku haysaa calanka maamulka Raasi Casayr State maxaad isleedahay maamulka Raasi Casayr waad oran lahayd ama wax fariina oo iyaga laftigooda aad u dirayso ma jirtaa maamulka Raasi Casayr State waa maamul dhashay waa maamul loo baahnaa waa maamul muhiim ah waa maamul wax weyn deegaanka ka taray una tari doona insha Allah biidnillaahi kariim waxaan u rajeynayaa maamulka Raasi Casayr guul waxaan leeyahay kamira dhaliya wanaaga aad wadaan iyo horumarka dalkiina iyo dadkiina aad la jeceshihiin calankiisa baan gacanta ku hayaa waa horumar nabad iyo cadaalad waana intaan u baahnayn wadankani wuxuu caan ku yahay nabadgelyo wuxuu caan ku yahay khayraad dabiiciya wuxuu caan ku yahay cadaalad marka waxaan leeyahay maamulka sidaad isugu taagteen inaad dadkiina iyo dalkiinaba wax ugu qabataan inaad ugu qabataan inta kale oo ka soo reer Raasi Casayrna waxaan leeyahay maamulkiina taageera isgarab taaga hiil iyo hooba sidaasaynu wadajir iyo iskaashi baynu wax ku noqonaynaa oo dalkeena iyo dadkeenuba ku horumaraya insha Allah aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Ruun Maxamuud Yuusuf wali waxaanu guntaanu kaga jiraa daawashadii iyo dalxiiskii goobaha dalxiiska ee ku yaalo maamulka Raasi Casayr State gaar ahaan magaaladiisa Caluula aad iyo aad ayaanu isugu taxalluujin doonaa inta aanu joogno deegaamada in aanu soo bandhigno muuqaalo qurux badan oo dadku la dhacaan uguna xiisaan deegaankooda
intii taqaanana ay u xiisaan inta aan aqoonna mataqaanaa ay u arkaanin wax xiisa badan oo iyaga laftigooda ku abuuri karaa shucuur ay ugu soo qalab qaataan inay usoo dalxiis tagaanin deegaamadooda. hadda halka aan ku sugannahay waa goobaha dalxiiska, waa qooriga magaalada Caluula, waa meesha ugu quruxda badan gobolka Boolimoog. waxaa jira meelo sida tan oo kale oo ku yaala magaalooyinka Xaabo, Murcaanyo, Geesaley, Dhurbo, intaba waxaan isku